marka aynu eegno sifaadkiisii khalqiga ahaa iyo qaabku u eka in badan waxaynu aragnaa iyadoo culamaa ilxadiid ay sifaadka khalqiga ee nebiga tilmaamaan masaa'il sharciga ku xidhan baa xataa jirta nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wuxuu tilmaamay qofka igu riyooda wuxuu i arkay fakaannamaa yacnii shaytaanku ima matalay xaqan buu ii arkay laakiin culammadu waxay yidhahdaan waa haddaad ku riyooto isagoo sifadiisii leh nin madow haddaad iskaga riyooto tidhaahdo nebigii oo lagu yidhaahdo waa nebigii aada dhow tidhahdo xalayta nebigii baan ku riyooday waxba kumaad riyoon weeyaan nin madow baabaad ku riyootee nebigu ma madoobaynbe idan si aad u hubiso ciddan aad ku riyootay inay nebigii tahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh inuu nebi moxamed iyo inaanu ahayn waa inaad taqaanaa sifaadkiisii khalqiga ahaa sifaadkay muxadisiintu ka sheegeena tilmaamaya sidii u ekaa marka aad garato sidii u ekaa hadduu riyada kugu yimaado markaasaad garan kartaa inuu kani nebi moxamed yahay suurada caynkaa u eg baanu shaytaanku isku matali karin amaa inaad uun wadaad duub le iska aragto cumaamad xidhanoo kuwa lagu yidhaahdo waa nebi moxamed inta badan dad badanoo ay dadku arkaana noocaasay isaga badan yihiin waayo nebiguba si ay u eegyihiin ma yaqaaniin wixii ay arkaanba waxay moodaan inuu nebi moxamed ay ku riyoodeen inuu yahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh sidaa awgeed bay culammada muxadisiintii waxay aad u tilmaamaan sifaadkii khalqiga ahaa abuurka ahaa ee uu nebigu lahaa salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wuxuu ahaa nebigu nin dhexdhexaada oo aan dheeraynna gaabnaynna labada dhan hadday tahay xagga dherarka xiga laakiin aan nin gaaban ahayn jooggiisa marka la tilmaamo waxaa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xagga hilibka qof dhexdhexaada oo aan qof dhuubanoo caata aan ahayn qof buuranna ahayn waxaa tilmaamtiisa kale nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh laabta nin laabta u weyn buu ahaa oo laab ballaadhan leh timo yar oo halkan ilaa xudunta liid yar oo timaa ku leh ilaa xudunta ay xidhiidhiso waxaa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ma uwa mataana weynaa gacmihiisa iyo addimadiisuba waa weynaayeen oo gacmo nineedoo rag ah ayuu lahaa wuxuu nebigu lahaa gacan kala baxsan oo aan gacan yaroo kooban ahayn oo haddana jilicsan yacnii aad buu u sacab iyo gacan jilicsanaa baa la yidhahdaa marka la salaamo ama la taabto wuxuu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh cidhibta addinka bay yidhahdaan mid aan hilib badan ku lahayn garabka xagga bidixda xiga labada garab dhexdoodoo xagga ka bidixxiga wuxuu nebigu ku lahaa meel yaroo kuusan oo leeg beed xabad beed oo yar oo timo urursana oo ah khaatamu nabuwa shaabadda nebinimada waxaa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wejigiisu miduu aad u qurux badan yahay caddaan mashruub bilxumra bay yidhaahdaan weji cad oo aan xoosh cad ahayne casaan uu ku jiro bay yidhaahdaan weji caddaan uu ku jiro caasuuse ay ku jirto casaan noocahi uu ku jiro oo flowerka oo kale abyadkan midabka yara casaankii uu ku jiro oo kale ayuu nebigu ahaabaa la yidhahaa midabkiisa wejiga marka la eego qaabka wejigiisu mu ahayn mustatiil bay yidhahdeen wuxuu ahaa mustadiir mid wejigiisu uu wareegsan yahay dhabankiisu uu shuban yahay oo isleegyo aan kala dheerayn koodadkiisa iyo dhabannadiisa iyo intaasi waxaa bay yidhahdeen nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ma af yarayn ee afkiisu waa roonaa waa sicilfam ayuu ahaa ma indha yaryarayn ee indhihiisu si fiican bay u ballaadhnaayeen waa indha jeexna waxaa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh mid timihiisu aan ahayn kuwa sii wada daasan oo timaha tooska ah ma lahayn timaha aadka jacwadada badan leh yacnii duuduubka badan lena ma lahayn timo sii daysan laakiin yaro laalaabi kara garaarimo yaroo aan badnayn leh ayuu lahaa timaha wuu la bixi jiray mararka qaarkood ilaa halkan shaxmatiludun dhegta laalaadkeeda tan ayay timihiisu gaadhi jireen mararka qaarkoodna waabuu sii dayn jiro ilaa garabka meelaha kan garabka agtiisa meelahan bay gaadhi jireen timihiisu sidaa wuu u feedhan jiray dambe oo timaha waxaynu xagga dambe isaga sii rigo mararka qaarkoodna wuu kala jeexi jiray yacnii halkan dhexe intay ka kala rogmaan bay labada dhinac ay u kala rogmi jireen dee maaha saa tima weynteenna kuwan hareeraha u baxee qofkan timaha jirecsan leh qolyahan in la joogniy waa aragtay timahoodu inay marka halkan dhexe laga rogo
tima caadi u rogmo caadi u dhaadhacaynay leeyiin nabigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi gadh kafiifa buu lahaa wuu gadh weynaa intan oo dhan gadhkiisi wuu buuxin jiray wuxuu ahaa nabigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi mid timihiisu ay feedhan yihiin oo had iyo goor timaha ilaaliyo aada u feedha ciro ma lahayn badan xataa markuu geeriyoonayay ciradiisa waa la tirin karayay bay yidhaahdaan midhadh ayuu madaxa iyo meelahan ku lahaa ciro tirsanta oo kow laba saddex loo odhan karo ilaa iyo intuu ka dhimanayay ciro caynkaasiya ma lahayn ee timihiisu madowgaas bay ahaayeen mararka qaarkood waxay dhaheen madowga casuus baa ku jirtay gadhkiisa iyo kuwa kan nooc min casaana tiibkii badnaayo uu marin jiray daraaddeed bay yidhaahdaan yacni wixii udgoonka ahaa ee tirada badan ee uu sameeyey nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh noloshiisa waxaa caan ku ahayd inuu aad u nadaafad badnaa oo maydhasho iyo isnadiifintiisu inay badnayd feedhashada timihiisa iyo ilaalintiisu inay wanaagsanayd tiibka waxaan la ismariyiyo udugga inuu aad nebigu u isticmaali jiray salawaatu ullaahi wasalaamu calayh oo ay saxaabadu u yaqaaneen hadduu nebigu meel fadhiisto carfin inuu nebigu ku filan yahay meesha uu soo fadhiisto inuu isagu ahaa shayga caraftaee kasoo udugga ka soo baxay inuu isagu ahaa idan culammadu waxay idhahdaan kamaali lkhalqi buu lahaa dhisme jidheed oo qurux badan buu nebigu lahaa salawaatu ullaahi wasalaamu calayh yacnii nin meel taagan oo u qurux badan ninnimo buu ahaa marka la tilmaamo dhaqankiisii iyo akhlaaqdiisii iyadu duruus bay u baahan tahay in laga warramo waayo guriga iyo siduu uga dhaqmi jiray mujtamaca iyo siduu ula dhaqmi jiray maamulka iyo siduu ula dhaqmi jiray dagaalka iyo siduu ula dhaqmi jiray marka la eego nebiga dhaqamadiisii cibaadaadkiisii akhlaaqiyaadkiisii marka la eego dhaqankiisu waa waxaan runtii la koobi karin waana xadiidkii muslim ku yaallay caaisha waata leh kaana khuluquhu lqur'aan nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh markii la weydiiyey akhlaaqdiisa dee qur'aanuun soconaya buu ahaa bay leedahay qur'aan ayaa akhlaaqdiisu ahayd waxaana ugu filan akhlaaqdiisu waxay ahayd in ilaahay qur-aanka uu ku tilmaamay subxaana wa tacaala wainaka la calaa khuluqin cadiim waxaad ku sugantahay baa la yidhi subxaana wa tacaala akhlaaq koraysa jumla ismiya mu'akada biadawaati الtawkiid ina iyo la wainaka la calaa khuluqin cadiim waxaad ku sugantahay baa la yidhi subxaana wa tacaala akhlaaq aad u weyn jumla ismiya oo weliba la sii sifeeyo oo cadiim lagu sifeeyey weedho kooban haddaynu ka tilmaamno waxay yidhahdaan nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu ahaa nin aad u mutawaadica aad isu dhuldhiga oo mutawaadica laakiin tawaaduca ay la socota bay dhaha haybe ay dadku haddana ka haybaystaan isagoo mutawaadica oo isagu isu dhuldhigayey laakiin ninku intuu u yimi markuu is hortaagay u gariiray ee uu nebigu ku yidhi maxaad la gariiraysaa anigu waxaan ahay mid hooyadii ay qadiidka cuni jirtay qadiidku waa hilib qaydhin oo inta la wadho dabeetana la cuno hadhow war islaan qadiidka cuntaay dhashay buu nebigu yidhi waxba ha kurbanin idan aad buu tawaaduciisu u tiro badnaa wuxuu ahaa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi aad buu u xishood badnaa geesi haddana wuu ahaa waxaa lagu tilmaamaa inuu aad u gacan furaayo deeqsi ahaa haddana ka dheeraa ismuujinta iyo magac raadinta wuxuu caan ku ahaayo bulshadu ay ku taqaanay ammaanada wuxuu caan ku ahaa asidq fi alqowli waalcamal mid run sheega camalkiisana ka run sheega hadalkiisana ka run sheega wuxuu caan ku ahaa nebigu aلzuhdu fi اdunya cinda iqbaaliha mid dunidu marka ay soo waajahday ku tiro badato isagu ka zaahida oo nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xilliyadii dowladda islaamiga xoolaa badan ay heshay isagu haddana xasiir yaroo dhinaciisa ku sawirma buu ku jiifay waa kuwii yidhi aanu furaash yar ku siinna ilaahay rasuulkiisiiyow ee uu nebigu lahaa war aniga iyo adduun maxaana kala galay nin safara baan ahay oo geed ka hadhsaday ee maxaa aniga macmacaankeediiyo waxeeda iga galay tilmaamayey idan markay dunidu soo qaabisho mid ka zaahida oo aan furshaanta hareeraha iska dhigdhiginoo iskaga dhalaalin buu ahaa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh marka gacantu madhantae dunidu ay jeesatana
midaan hunguri badnayn oo iska daba ridin sidii xoolo loo heli lahaa ayuu ahaa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wuxuu ahaa mid acmaashiisoo dhan ilaahay u khaalis yeela wuxuu ahaa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh carabka iyo afka mid aada u fasiixa oo deggan oo si deggan u hadla oo saxaabada qaarkood ay leeyihin nebi maxamed haddaad istidhaahdo hadalkiisa tiri waad tirin karaysay laakiin isaga ilaahay dee wuxuu siiyey jawaamic alkelim hal la tirin karaya hadal kooban oo macno ballaadhan leh ayuu ku hadlayay oo ka mid ahaa waxyaabihii ilaahay ku gaar yeelay waxaa haabit aljanaan mid qalbigiisu mar kasta uu deggan yahay oo aan baqaha aqoon haddii dagaal lagu jiro iyo haddii nabad la yiyo mar walba qalbigiisu uu deggan yahay waxaa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi nin xakiima oo caqli badan wuxuu ahaa nin intelligent ah oo xusni lfahmiya oo aad fahamkiisu uu sarreeyo wuxuu ahaa mid naxariis badan oo ka weyn iyo ka yarba u naxariista oo dhinaciisu dabacsan yahay wuxuu ahaa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi dareenkiisa iyo mashaacirkiisu mid ay sarrayso oo saa daraaddeed dadka cafiyo o iska dhaafa oo ka xumaha sameeya u dulqaata wuxuu nebigu ahaa mid ka dheer ad adayg iyo qalqallafsanaanta iyo ad adkaanta wuxuu ahaa nebigu mid sabir badan meelaha dhibtu ay taagantahay ku sabra dhiiran xaqa iyo odhaahdiisa ku dhiiran idan sifaadkiisu nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh khuluqigaahina aad bay u tiro badnaayeen iyana weedhaha koobanaan iskaga soo koobsanno maadaama warkeennu uu tilmaamo yahay ee aanu deris noqon karaynin